عليكم أصحاب شرفت iyo qiimaha u saaxiibka wararkii caawa maxaan idin hayaa dee mida kooxda Manchester United oo caawa Al-Ittihad Stadium intii lala tegay saa loogu jidjiday sida loo sixsixiyay kooxdii Man United ahaa odaygii Ronaldo intuu baqay ciyaartii markay bilaabeen rabtay biyo muruq baa booday waa dhaawac baan ahay alla fulaysanaa waxaanu arkayay waa gartis Ronaldo meel uu ka baqa waa jooga hada waxaan waxba lagama qaban kara carabtan waxaan ku yiri midba midka kale uu fadhiyo midba ka daran yahay midba mid marka wuxuu si nin weyn baa tahay cimaamadu meesha kaaga dhaxdhicin meesha ha ku ceeboobin bisir waa gartis wax garad weeye ninka Ronaldo haduu dhaawacmay de wararka la sheegayo kala wararka xamtu waxay sheegayaan odayga Ronaldo inuu baqay laakiin hadii wararkaas run yihiin meel uu ka baqa waa joogay arrinkaasna anigu hadda waa u garaabay nin weyn meeshaas inuu meel u dhex geli kara caawa ma bahaynba haddaba kooxda Manchester City ayaa caawa waxay ku tumatay dariskooda Manchester United iyagoo baabiyo si naxariis darra ugu dhex jiiday garoonkan Al-Ittihad Stadium si dheeraysteen horyaalka Premier League iyagoo markii hore kooxda Liverpool u soo jirtay 3 dhibcood oo kaliya kaalinta labaad ku jirtay laakiin caawa ayay la sii fogaadeen oo way la sii durkeen ay kooxda Manchester City ay ku gacan sareysay badana gacanta ay ku haysay ayay waxa la dhahaa kooxda Man City caawa waxay ka soo arguteen kooxda ay dariska yihiin Man United kaasoo Pep Guardiola soo afjaray 3 ciyaarood oo xiriir ah oo Al-Ittihad Stadium wax guul ka gaadhin baan leeyahay kooxda Man United caawa ayuu soo afjaray wuxuuna dariskooda ku xaaqay 4 gool oo ay kala dhaliyeen De Bruyne oo 2 gool dhashaday Mahrez oo isaguna 2 gool dhashaday labada oday waa kala qaybsadeen waxay dhawneen nimanka u turimayne adna 2 ka dhalay adna 2 ka dhalinaya marka kooxda Manchester United caawa dardarayo caawa waa la dardaray waxaana dardartay kooxda Manchester City kaasoo baalasha ka rifeen halka goolna waxa uu dhaliyay u saxiixay Sancho ayaa goolka u dhaliyay ciyaaryahanka heer England ayaana maxaa la dhahaa u saxiixay goolkaas ay u dhalisay kooxda Manchester United goolka kaliya ayayna dhaliyeen waxaana u saxiixay ciyaaryahankaas sida horeyba idinku sheegay shanaad ee bilowga ciyaarta ayaa waxa goolka ugu horeeyay shabaqa ugu shibay kooxda Manchester United De Bruyne kaasoo markiiba gool ka dhaliyay Manchester United ayaa tiri sidan macquul maaha wayna iscanaanteen waxayna soo qaadeen ciyaaryahanka da'da yar ee maxaa la dhahaa Elenga iyo Bruno Fernandes maxaa la dhahaa waxay daqiiqadii 22aad u suurtowday in ciyaaryahanka heer England ee Sancho uu goolkan u dhaliyo kooxdiisa sanaad waxaana goolka u saxiixay Sancho oo u bareejeeyay goolkana waxa uga soo shaqeeyay Pogba ayaana goolka ka soo shaqeeyay isaguna 2 ciyaartooy oo Man City ayuu maxaa la dhahaa intuu u jaray ayuu goolka dhaliyay 3 daqiiqo kadibna waxa Man City gool ka khasaariyay Fedi kaasoo birta ka jaray ciyaartan ayaana waxay ahayd ciyaar ay gacanta ku hayso kooxda Manchester City kaasoo kubad ay ku raaxaysanayaan ku soo bandhigay garoonkooda Al-Ittihad Stadium isagoo Pep Guardiola doolaha ka qoslay kuna raaxaysanayay xasuuqa ay u geysanayso kooxdiisu daba De Bruyne ayaa hogaanka u sii dheereeyay daqiiqadii 28aad isagoo goolka labaad u dhaliyay kooxdiisa maxaa la dhahaa Manchester City sidoo kale daqiiqadii 68aad goolka wadnaha jaray kooxda Manchester United u dhaliyay kooxda Man City Riyad kaasoo maxaa la dhahaa kubad aad u awood badan uu ku toogtay goolka uu waardiyaha ka hayay dhigaya wuxuuna ahaa gool niyadda ka dilay kooxda Manchester United maadaama ay markii hore rabeen inay bareejeeyaan laakiin waxaa ku dhacday filanwa markii goolkaas uu ka dhaliyay wiilkaasi sidoo kale daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta lagu daray ayuu mar kale Riyad mar kale gool u dhaliyay kooxda Man City kaasoo farta laga soo daawaday maadaama looga shakiyay inuu ku jiray offside laakiin noqon waayay offside kooxda Manchester City ayaa ciyaartan waxay soo bandhigtay ciyaar aad u heer sareysa oo kubadeedu aad iyo aad uga fiicnaayeen kooxda martida ahayd ee Man United kaasoo inta badan ku jiray daafac laakiin kooxda Manchester City ayaa ahayd kooxda kubadda gacanta ku haysay kuna jiiday dhan kastaba kooxda Man United sidoo kale waxaa la yaab noqotay saadaashi uu ka bixiyay tababaraha Manchester City Pep Guardiola kaasoo uu yiri markii wax laga weydiiyay ciyaarta uu yiri waxaan ka warbixin doonaa 5 daqiiqo kadib ciyaarta marka 5 daqiiqadood ee uu qabsaday Pep Guardiola ayaa waxay noqotay 5 daqiiqadood ee ugu horeysay ee kooxda Manchester United lagu cunay goolkii ugu horeeyay laga dhaliyay
war odaygan Pep Guardiola caadi maaha 5 daqiiqo kaliya baa la qabsaday 5 daqiiqo kaliya ay siiyay ciyaarta markaas lagu kala ogaanaya waxaan marka 5 daqiiqadood uu qabsaday maadaama ay uu yiri aniguna waxaan istarkaha beenbeenta ka ciyaarsiinay De Bruyne iyaguna Fernandes ayay iyaguna maxaa la dhahaa Bruno Fernandes andhehe ayay iyaguna ka ciyaarsiinaya marka 5 daqiiqo oo kaliya isuga buu yiri 5 daqiiqo dabacdiina goolkii ayay dhaliyeen sidoo kale kooxda Arsenal ayaa guul ay ka soo gaadhay Watford kadib markay maxaa la dhahaa 3-2 ay ku garaaceen kooxda Watford ay kala dhaliyeen Martin iyo Saka sidoo kale Gabriel ka ayaana record xidhay kaasoo maxaa la dhahaa da'diisu ay tahay 20 jir iyo 182 maalmood ayaa noqday ciyaartooygii ugu yaraa ee gaadha 20 gool dhaliya dhammaan tartarmadoo dhan ilaa iyo waqtigii Cesc Fabregas kaasoo isaguna ahaa 20 jir iyo 141 maalmood ku dhaliyay 20 gool Saka caadi baa ninkaas meel baa loo wada waxaan malay Fabregaska iyo Thierry Henry iyo dhabadiisa buu wada ku socdaayo ninkaas khatar weeye marka cunuga ayarna macaa wuxuu xidhay recordkaas 20 gool ayuu u dhaliyay kooxda Arsenal tartamadoo dhan isagoo maxaa la dhahaa soo gaaray recordkii Cesc Fabregas ilaa iyo 2007 baana ugu dambeysay recordkaas in qof Arsenal uu jabiyo waxaana caawa gaaray ciyaaryahankan yar ee Saka warinkaas waa laga qayliyay marka kooxda Arsenal ayaa waxay soo bandhigtay kubad ninkastoo ay maxaa la dhahaa ay sigatay in la barajeeyo laakiin kooxda Arsenal ayaa maxaa la dhahaa waxay ka soo badisay waxayna soo fadhiisatay kaalinteeda afraad ee kala sareynta horyaalka Premier League iyagoo maxaa la dhahaa kooxdii Manchester United iyo Tottenham iyo West Ham iyo xagga iskaga durkiyeen iga durka idigu xagga dambe ka dawaafayla marka kooxda Arsenal sanadka maanta waxay tartan ugu jirtaa inay kaalinta afraad ay si wacan u xajisato oo maxaa la dhahaa haday sanadkii hore ay ka hadhay UEFA Champions League sanadkan waxay ku dagaalamayaan in ay ugu soo bixi lahaayeen UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda sidoo kale kooxda Barcelona ayaa iyaduna guul soo laabashada gaadhay waxayna soo galeen kaalinta saddexaad ee horyaalka La Liga iyagoo maxaa la dhahaa guul ay waqtigii dambe geerida ay heleen oo maxaa la dhahaa ay ku gaadheen guushan maxaa la dhahaa kooxda Barcelona oo waayihii ugu dambeeyay ku jirtay kaalmaha ugu hooseeya ee La Liga ayaa tan iyo intii magaranaysa uu soo laaftay laacibkoodii hore ee Xavi waxay gaadhayaan guulo istaba jooga iyagoo guulo badan soo gaadhay maxaa la dhahaa waxayna hadda ku soo jiraan ciyaar xilli fiican bay ku jiraan oo maxaa la ciyaarihii ugu dambeeyay oo dhan way badinayeen waxayna helayeen guulo fiican marka kooxdii Barcelona ahayd way soo laabanaysaa waxayna ku soo laabanaysaa sidii lagu yaqaanay kooxda Barcelona ahayd oo haddeer soo ilaawaysa Messi kuna jirta waqti fiican oo ay guulo gaarayaan kana raystay ninkii Messi ahaa awal la oranayay Messi la'aantii socon maysaan haddeer waxay ku jirnaa baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii marka kooxdii Barcelona ahayd waa ilowday ninkii Messi la oran jiray waana ka raysteen haddeer waxay marayaan waqti fiican bay ku jiraan kooxdii Barcelona ahayd intaas ayaa hadaba ku soo gabagabayn doona wararkii ciyaaraha amaana alle meel kasta adduunka dacaleysa ka joogtaan subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-ka iyo share-ka saaxiibayaal ilaawin kooxdaadii ciyaar sahamoogaan